أجمل سيرفيس dhammaan asxaabta igu xiran dhinac walba social media kusoo dhawaada mar kale muuqaal cusub haddii aan la qadaro muuqaalkan waxaan idinkugu soo bandhigi doonaa boos iib ah taariikhda muuqaalkan aan sameynayo waa bisha 3 2023 waxaan rabaa inaan idin sharaxo booskan hadda aan kor taaganahay jidkan waa jid 10 ah laamigu toos uga soo baxaa wax tii ah ma lahan waa wado nadiif ah aan xirnayn zoom haddaan soo dhaho meeshaas gaariga taagan yahay mootada hadda ay martay waa laamigi dhulkan ama booskan laamiga wuxuu ka noqonayaa baloog saddexaad uu laamiga ka noqonaa uma dheero baloogyada hadda dhulkaana waa dareemi kartaan waa kundisho barfinti laamiga waa kan booskan waa kor taaganahay laamiga waa soo zoom kareeyay booska waxaan idin sheegi doonaa cabirkiisa qiimihiisa dukumiintigiisa laakiin waxaan idinka codsanayaa adinkoon muuqaalka fahmin oon dhammaystiranin inaan inta ka baxdaan aynan su-aalo kasoo weydiino wixii meesha aan ku dhex sheegay wax meesha qabya haddaa uga tago waa isoo weydii kartaa laakiin haddaan dhammaystiro muuqaalka ka dhammaystiro booska waa kan iibka ah jidkanoo 10 ahaa hormaro cabirkiisu waa 15-20 waxaa horta muhiim ah inaan idin sheego xaafadu ku yaala eriyada warbixinta oo dhammaystiran booskan wuxuu ku yaalaa galmudug waa dhulkii asluubta u taqaaneen amaba ex control dhulka ka dambeeyo ee asluubta la dhihi jiray baa hadda galmudug la dhahaa waxaa laga sameeyay xaafad caalami ah inaba aan caadi ahayn dhismaheeda high class uu yahay nadaafadeedana maasha Allah ay tahay xaafadu way yar tahay laakiin waa xaafad yar balse quality leh dhanka dhismaha iyo waliba dhanka nadaafada iyo dhirta lagu ku abuuran ee geedaha ah intaaba way ku amaanan tahay meel walba sidii laga dhigtayna noqoto haddii dhulka la nadiifsado guryaha la quruxsado qurux bay noqonaysaa xaafadoo dhan qaalina way noqonaysaa xaafadan qiimaheeda waa high waa 100%. booska waa kan labadan guriga u dhaxeeya oo filada ah jidkan aad taaganahay buu birima ka noqonayaa oo laamiga toos uga soo leexda waana xaafada galmudug waliba eriyada ugu shidan tahay booskan waxaa aragtaan guryo inay kasoo jeedaan dhabarkiisa meesha dhabarkiisa ah boosas ama guryo dhisan kasoo jeeda jiinkadaha gaduudan waa guryo dhisan jiinkadahaas wadaa hormarta wadadaas 6 mitir xitaa ma dhamo waa wada yar laakiin booskan hawo wuxuu haystaa jidkan weyn oo 10 ah iyo jidkaas yar ee ka dambeeyo jidka yarna asaga iska leh oo wax xirmaya ma ahan oo guryaha irdahooda meesha ku soo jeedaan waa wado laakiin waa wado cabir yar aan cabirkeedu weyneyn booska hadda aad aragteen oo birimada ka ah wadadan hadda aan ku socono cabirkiisuna yaa 25-15 dukumiintigiisu waxa weeyaan xasan sheekh saawada ogtihiin galmudug waxaa la sharciyeeyay xilliga xasan sheekh dowladda xasan sheekh dhul walba oo ay dowladdu sharciyeyso waa sharciyeysan yahay wax wara iyo muran iyo qaylaa kama taagno galmudug waa xaafadaha ugu qaalisan qiimo ahaan markii loo fiiriyo xaafadaha la dhisay 10 sano ugu dambeysay iska dhahno 10 sano ugu dambeysay xaafadaha camirmay xaafadaha ugu qaalisan bay kamid tahay sababtay qaaliga u noqotayna Soomaaliya dhan wada degan qolo gooniyo u badan ma jirto waa dhul dhismo ahaan la habeeyay oo dhismihiisa la qurxiyay wadooyinkiisu waa 10 wama ila dhalik marka waxaad dareemi kartaan qiimaha booskan hadda uu marayo waa $75,000 oo israaca waana qiimo laasti ah booska hadda aan ka soo tagnay qiimihiisu waa $75,000 oo aakhir ah maadaama qiimaha hadda aan idin sheegay qaarkiin ay 100% normal leeyihiin jaanisna u arkaan ay ka faa'iideysanayaan qaarka kalena oo aan la soconin xaafadan qiimaheedana ay madaxa gacanta saaranayaan waxaa keenay xaafada quality-geeda xaafadu hadday noqon lahayd xaafad ayada dhan oo basiib camal u eg jidad aan lahayn wadooyinkeedoo dhan ay tii yihiin ama xiran yihiin qiimahan ma ahaan lahayn raqiis bay ahaan lahayd waayo dhulkan hadda aan idin sheegay laamiga uga dhow baa ka raqiisan oo ka lacag yar
marka waxaan micnaha idinku dhiirigelinayaa meel walbo haddii shacabka xaafaddaa degan ay ku tashtaan inay jidadka furaan oo geedihuudka iska jaraan oo wadooyinka iska nadiifiyaan oo qashimada hortooda ka qaadaan dhulkaas qiimuu yeelanaya. qiimaha markuu yeesho waxaa maslaxa ugu jirtaa dadka dhulka leh iyo dadka xaafadda degan. laakiin dhulalkan ama boosaska ama guryaha iyadoo la degan yahay qashimada hortooda tuban yihiin, subxaan allah, wax laga sheekeyn kara ma aha. nadaafad darada idinka afkeena ka maqashaan waxyaabo yaryar oo kaamirada ay qabatana waa aragtaan, laakiin ayadiyo nool nadaafad daradiyo noola anaga aragnaa, aan jidadka ku aragnaa, guryaha dhisan ee la degan yahay ku aragnaa, dhinac walba magaalada markaa ka marno indhaheenay qabanaysaa. taa maxaa uga hor imaan karnaa, maxaa uga hortegi karnaa in nadaafadda lagu dadaalo bas. keliya gurigaaga hortiisa nadiif, qofna waxaa u qabanin inaa macruuf samayso dadka wax u qabata hadday kugu culus tahay, adiga kaaga keliya ka bax oo nadaafadda laga shaqeeyo. dhulkan ama booskan bannaan ee labada filo u dhexeeyo hadda aragtaan xogtiisan horaan idinkugu sheegay, wuxuu ku yaalaa galmudug. galmudugna waxay ku taalaa asluubta. dadka waxaan sheegayaa dhulka wadanka wax badan ka maqnaa ee aan waxba kala soconin. galmudug haddaa maqashaan waa dhulkii la dhihi jiray asluubta amaba ex control afkooya ka dambeeyay. dhulkaas baa hadda waxaa loo bixiyey galmudug. dhulka dukumiintigiisu waa dowladii xasan sheekh. dowladihii ka horeeyay dhul dowladeedu ahaa, laakiin dowladda xasan sheekhaa la bixiyey, shacab loo cabiray, cabirkiisu yaa 25. qiimahana koley booska hadda aan soo dhaafno waa idiin sheego waa $75,000. galmudug waxaa ku yaala boosas 100,000 ah laamigan aan saarnayn. marka booska waxaan idinkugu soo dhigay inaad ka faa'iidaysataan. qof walba oo galmudug weydiiyey ama muuqaalkan arko inuu share kareeyo hadduu asaga ka faa'iidaysan karin, hadduu ka faa'iidaysan karana uu ka faa'iidaysto. waa un intaa xaafadan hadda galmudug iyo daarsalaam iyo xaafadaha inta badan dhegihiina ku batay waxaa qaali ka dhigay dhismaha iyo nadaafadda, wax kale qaali kama dhigin. qolo walba ee meel degan way samaysan karaan, wax weyn dadkaan ma samaynin. dhismaha xitaa muhiim ma ahan, laanoo dhismaha qofka hadduu cariish degan yahay ama buush degan yahay ama jiinka degan yahay, laakiin hortiisu ay nadiif tahay, wadadana nadiif ay tahay, wax saameyna kuma yeelanayo. gurigiisu iyo bii'ada iyo xaafadaas oo dhan waa nadiif. waxaa ku nabadgeliya awlaada, dadka waaweyn oo waalidka ah. nadaafad darada uma fiicno, ha lagu dadaalo nadaafadda. waa mahadsantihiin.